ninka naag xun qabaade ma tamarinayo abid ma tamarinayo ninku hadduu naag xun ilaahay ku soo beego nin sheekahoo naxwaha aqriyi jiray ayaa markuu soo maray beydka odhanaya uطawifu maa uطawifu uma aawi ilaa beytin qaacidatuhu lukaaci intaa maalinoo dhan waan wareegayaa anigoo daalanoo meelaan ku nasta doonaya ayaan haddana waxaan dalanbaabigii imaadaa ilaa beytin guri qaacidatuhu ay iisii yuururto lukaaci mid aad iyo aad u anshax daran oo aan naxariis lahayn ayaa iisii fadhida markaasuu sheekhu markuu sida aqriyay waa sidaan anigu ahay buu yidhi marka haddii qofku aanu helin nasiinadii guriga ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها نصينة وحي تلوى قرية هذه قرية أتكون نسويدو أذيك يتكون نسون الله يدمو إسلا عذاب مضانيسان سوما هذا وحي كشي كيسا نمن بعد قال تقي بري تدنو لقاء أتكاضي من آدي آدو دقاليها أنا ayaa dabadeedna rag dhowrana wax buu yeelay waa la soo eriyaday waana nin aad u orod badan buu ahaa ciidankii waa ka hadhi waayeen wax la caydsadaba markuu reerka duleedkiisii yimi ayuu istaagay markaasay nimankii soo gaadheen gaadhi la'aa markii hore markaasina warheedhe meeshii gurmadka aad ka heli lahayd ee ciidankaagii dadkaagii joogay waba tan kuu muuqatee maxaad isu taagteed isu dhiibaysaa markaasaa wuxuu yidhi markaan guryihii arkay baa waxaan xasuustay ta igu sugaysa naagta ka igu sugaysa marka waxaan si noloshaa gabadha aada la nooshaa waxaa kaaga roon inaad adduunyada iskaga tagto inaa idishaan baan markaa go'aansaday waayo raaxo kuma haysta gurigeyga nin caqli badan baa ciidanka wato wuxuu yidhi waryaadheen iska sii daayo horuu kani u dhintay kani wax nool maane horuu u baaba'ay u dhintay faraha ka qaaday